Ma isku aragtay midabka maqaarkaaga oo cadcad yeesho una ekaada sida sawirada ka muuqdo, kaasoo badanaa lagu arko xabadka, dhabarka, qoorta iyo gacmaha, mararka qaarna wato cuncun iyo qolfoof ka kacda? Haddii jawaabtu haa tahay, casharkan adigoo kugu socda ee ka faa'iidayso lana wadaag bulshada. Ciladan waxaa loo yaqaanaa qawid, afka qalaadna waxaa lagu dhahaa pityriasis versicolor, waana cilad uu keeno jeermis fangaska oo ku dul tarmo kadibna bedela midabka maqaarka. Fangaskan si dabiici ah ayuu ugu dul nool yahay maqaarkeena, laakiin markuu tarmo ayuu dhibkan keenaa, waxayna arrintan dhacdaa badanaa xilliga cimiladu ay kulul yihiin, hadduu maqaarkaagu saliid leeyahay, haddii hormoonadu khalkhalsan yihiin, iyo hadduu difaaca jirkaagu yaraado ama aad qabtid xanuunada difaaca yareeya. Ciladan aad ayay ugu badan tahay bulshada, waliba dhalinyarada, waana cudur jeermis keeno, daawona leh ee ma ahan sida dad badan aaminsan yihiin inuu yahay wax wasakhda iyo qaanjeerta ka dhasha. Cudurkan waxaa lagu daaweeyaa kaniiniyaal, kareemyo iyo shaambooyin loogu talagalay in lagu ciribtiro fangaska. Fadlan haddii aad ciladan ka cabanaysid, la soo xiriir dhakhtarka maqaarka oo aad xarunta ka helaysid maalin walba. Waana mahadsantahay.